dhalinyarada aragga naafada ka ah ee wax ka barta jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho ayaa soo bandhigay xafiis wax looga qabanayo baahiyaha haysta dhalinyarada arag la'aanta ah iyo qalab loogu talagalay in uu u fududeeyo dhalinyaradaasi baahiyaha gaarka qaba waxbarashada kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Dhalinyarada nooso iskooda isu xilqaamay ayaa sheegay inay ka shaqeynayaan horumarinta iyo dhiirigelinta dadka aragga naafada ka ah iyo sidii ay ugu maarmi lahaayeen dawarsiga inay u heli lahaayeen shaqooyinka ay helaan dhalinyarada kale ee asaagooda. Waxayna ka codsadeen ganacsatada dawladda federaalka Soomaaliya in la caawiyo. Qaar ka mid ah dadka ka soo qayb galay ayaa u soo jeediyay dadka aragga naafada ka ah ee ku jira guryaha inay geeyaan goobaha waxbarashada. shalay waxaan ku taamaynay oo dheheen waxa la yiraahdaa waxaan ku baran karnaa waxbarashada ardayda fasalka waa la fariisanay alxamdulillah waan la fariisanay hadana wax aan siinayna nolosha waa istaabistab ay tahay hadana seen ardayga shaqa dugsiga aan shahaado isla qaadan hadana aan shaqada aan uga sinaana sidoo kale ko wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka waa la hadli lahaa oo aan ilaha dadkani waxa loo talagalay hay'ad naafo qaran gacantaadina ku jirta madaxweynihii baarlamaankii aqalkaasina qabaan way ka soo dhamaatay gabadha imanka joogta xaniif waxaan leeyahay walaal sanadka inta ku dhamaanin waqtiina u dhamaanin bal hay'adii gacanteena soo geli oo noogu dhawaa si xuquuqdii laga maqneed ay noo sahlanaato inaan helno. gudoomiyaha ururka dhalinyarada aragga naafada Soomaaliyeed Ibrahim Maxamed Cali ayaa ka warbixiyay baahiyaha ay qabaan dadka arag la'aanta ah. Wuxuu ka shaqeeyaa wacyigelinta iyo waxbaridda iyo horumarinta dadka aragga naafada ka ah ama dhalinyarada aragga naafada ka ah. Agaasimaha waaxda naafada maamulka gobolka Banaadir Axmed Xasan Warsame ayaa sheegay in waaxda naafada gobolka Banaadir ay wado dadaalo lagu horumarinayo naafada Soomaaliyeed. waxaan ka rabnaa qof kasta oo naafo ah haddii iyadoo wax baratay inay walaalkeed wax barto taas ama loo gaari karaa marka waxaan rabnaa inaan insha Allah taala dadka wax bartay loo helo shaqooyin ay leeyahay rajaynayna. Usmaan Abtow, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.